آديات بمهم وصحي أنا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي هنكو عنقبل إلهي نقبل أنا إنكو عنفعه marka hore reer taageer aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada iyo odayaasha iyo hooyooyinka reer taageer inay u doodaan inay u ololayaan inay baldantooda waxa ugu weyn iyo hubka ugu weyn isticmaalaan waa wacyigelin waddanka dalka waxa la yidhi ha la isku tashado isku tashadkii baldadka inay ka dhaadhiciyaan oo yiraahdaan war dadku waa la isku tashaday hay'ad lama sugo dawlad lama sugo mid kale lama sugo qof meel ka imaanaya lama sugo waa la isku tashaday saadaqteed isku tashiga inay ka dhabayaan baa raasi casayr kulmiye ururkaas isu taag ururkan marka waxa la aasaasay 1 bishii Abriil 2017 waad garanaysaan waa la socotaan telefishinada ka daawateen oo way ka warhaynaa maanta kiin isbari mayno gabdhahan marka waxay ka yihiin member iyo xubno runtii muhiim u ah oo idinkoo kaleeto ahaayo guriga joogay oo hooyooyin ahaayo hawl sida idinkaba ay hawl idin la xiriiro iyagana hawl la xiriiray laakiin qafir ku dhigtay ogeey hawshaas u soo taageer bay ka bilaabeen kow nasiib waxa uu yeelateen reer taageero inay hawshii haybadda reer Turkiya way hagaagsan yahay horumar inaan gaaro maanta u helay hawlaheeni habsaawo halaysanaa inaynu hagaajinayo hagar baxnaa hanti nin dhiibiyo ninkii hawsha qabanayaba u kala harimayno hadafkana waa hal qoraa maasha Allah dadweyne saaka farxad baan dareemayaa dalkeena laga dareero dadkiisa nacay maanta dayaxba uu iftiimay oo dib loogu noqoy durba adeeg caafimaad baa inoo hirgalay ضرور dadweyne saakay farxad baan dareemayaa dalkeeni laga dareero dadkiisa nacay saaka dayaxba uu iftiimay dib loogu noqoy maanta dayaxba uu iftiimay dib loogu noqoy daruur baa curata doog iyo cagaar ka baxay durba adeeg caafimaad baa inoo hirgalay dawlad hoose iyo bangiga waa shaqaynayaan duulimaadkii iyo diyaaraadkii loo saxiix dal iyo dibad baa dalxiiskii inoo ka yimi daayinkay waxaan ka tuugaynay sanado badan inuu dununkii khilaafaadka laga dudaro sida doonayna inuu daayin noo aqbalay ee ilaahu daayin ducadeena noo ajiibay hadda waxaan ballan qaadaynaa haddaanu nahay Xaawo Yuusuf Xaawo Jaamac Maxamed iyo Xalima Saciid Maxamed awroosna nala fikada laakiin naga maqan oo la kaashanayna bulshada reer taageer dhalinyaradeena degan magaalada haday tahay kuwa xoogsatada iyo haday tahay kuwa dukaanada ay hadda inay kala joogaaneen Cabdirasaaq Ismaan Saciid iyo Faarax Axmed Muuse ay hadda inay kala joogaaneen aan la kaashanayna arinta talaabo intaan ka qaadi karno inaan noqono waxaan u maleynayaa dhammaan dhalinyaradu in raali lagu yahay أنا وضعت معي رياضة غير باهي واسكا فربلان تاي سكول هو نجد يعيه المايو قدوس السر ماله عسبتال ماله هنا هرتي بوصير بانوريسن هرتو بوصير وشقارة ميل مرة ماله عسبتال في عنو معنا قلبيات أو لقى شقين كرو هذا الشقارة مهمة لكير كرو معها وحوي سكول هو نومالها دير نومالها بكذا إنه كعبانين ونومالها دوس السر هذا أنا جو أكو هالله هويوينك دلائي أوبت كرر تاجر وحبرت أنا وحنا قلنا رفعت برشة ما يقطع إن دير بيسيل وياني مش هذا يتجاني بيا ما هيستا مش هذا يتجاني وحي جوان ميل بروين وحبيكي iyo maalintii ba Roma waxeelka biyaha oo ari xoolaha waashiyo badiyaha soo qaad iyo ay maraaneen dabeero waxa keenaya deeq la'aanta xaydaan la'aanta inuu markuu gaaro sideedaad waana la ka gudbiyaa waxana la ka gudbiyaa gobolada kale boosaaso ama baargaal waana la ka gudbiyaa waxa dhici karta hooyo hal ilmood balahayd ilmaheed sideedaad gaar aan ka maarmi karin in ay jirto ilmihii markuu sideedaad gaar sagaalaad boosaaso looga gudbiyay
ayadiina ma guuri kardho oo meeshii waxaa weeye deegaankeeni weeyo ilmihii maba raaci kardho boosaasan hadday doonto hoyba kuma laha insha allahu bilmillahi qarashay ku aadamada ay haysato annaga iskool sare la-aantaas rafaad buu nagu hayaa rafaadkaas aad buu noogu tiira dheeryahay tabartayadu aad bay u gaaban tahay iskool sare. bismillahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أنت كذب مركورة وحسود وينيا وديك كالصعدة قرر راس عصير كلمية قرر سمافل وديك كهول قلع أقوم بدنا نقول هي واحد قبتين أنا كده لك سنة هي وصغي أنت كشق ليسا وحنلاقي هي إلهي بينك أبا المرين دونا وهي الغطي إيو وحاد هذا كله جوكتاني أنت أكيد تيم كساكن الجو وحنلاقي كسر دواذا بعض وحبرشة الدجمة ساك واحد جوكتاني دكشي سريع محمد حسين دكشي وهو صلح وصوارتين هذا الكي مؤمن ومملأه ونود لي أورك يهوشيسا كليه waxaan rabaa anu inaan nurka kuna booriyo hawsha adag ee hayaanin iyo meelaha adag oo ay ka soo dhalaaleen inta meelooda wax laga qabtay intuba waa in wax u baahnaa oo aan hay'adina wax nooga qabateen cid kalena wax nooga qabateen falillahi alhamdu dad isku tashtay oo deegaanka ah ba deegaanka iyo deegaanka banaankiisaba wax muuqda ka qabtay. أنا waxaan rabaa inaan kelmado yar ka iraahdo xagga waxbarashada degmada maadaama guddoonka waxbarashada degmada aan ahay degmada Baargal waxbarasho ahaan 7 sano ilaa 8 sano ugu dambeeyay kor u kac weyn baa ku yimi waagu hore xoogaa waxbarashadu gobol ahaan way hooseysay marka sanadadan dambeeto aad bay kor u kac u sameysay guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Baargal si xawliya bay kor ugu kacday markii loo eego ardayda dugsiyada dhigata iyo macallimiinta ka howlgala markii loo eego sanadkan waxaa ka qalin jebinaya dugsiga sare Maxamed Xuseen dafcadii saddexaad ardaydu dugsiyaduna waa ay badan yihiin oo waxaa wax ka barta ilaa 20 xarumood baa degmada dhan ku yaalo banaankeeda iyo gudaheedaba dad ilaa 2,000 oo qof ah wax ka barta ardayda wiilal iyo gabdho haddii ay noqon lahayd waxbarashada dadban iyo haddii ay noqon lahayd waxbarashada tooska ahba degmada way ka socotaa waxbarashada dadban waxaa ula jeedaa waxbarashada dadka waaweyn hooyada iyo dadka waaweyn loogu talagalay kulliba si xawliya bay uga socdaaneen dhinaca kaleeto waxbarashadii diiniga ahayd iyo waa ka socda oo masaajida iyo aad bay waxbarashadii diiniga ahayd deegaanka uga socotaa marka xaggaas waxbarashada waa degmadu aad bay uga soo kacday gobol ahaan waa laga dareemi karaa oo gobolka hadda waa sii gelaysaa Baargal waa magaalada ugu horeysay gudaha gobolka markaas ay gashaan magaalooyinka waaweyn tagtaanina waa ka dareemi doontaan horumarka ka jira inta markii aan kaga baxo ururku waa urur samafala waa urur khayriya oo wax badan deegaanada u qabta kaliya anigu waxaan ku boorinayaa oo aan ka codsanaynaa degmada Baargal caqabad iyo waxyaabo yaryar baa iska jira oo waxbarashada ka haysta gaar ahaan dugsiga sare ugu muhiimsan maxaa yeelay dugsiga sare waa indhihii degmada waxyaabo lagu adag baa jira oo ay ugu culus tahay maadaama dugsiga sare form 4 uu sanad walba qalin jebinayo meelo badanna aan la kaashanay bilintarka waxa la yiraahdo iyo koobiga wada socda xarumo meelo badan baan weydiinay ciidan badan baan la kaashanay dugsiga xoogaa way ka baxsanaatay awoodiisii lacag ilaa $900 baan loogu sheegay marka uu cusub yahay oo boosaaso ku yaalo marka ururka waxaan ka codsanaynaa wax la fangareeyo wax la gashto waxa ugu khayr badan awlaad wax baranaysa in ardaydaas centralized u fadhiya xagga waxbarashada in dugsiga Baargal iyo dugsiga Bareedo oo isaguna hadda waxbarashada u soo taagan labada dhinac xagga waxbarashada si xawliya loo saaro annagana codsigaas hadii wax looga qaban karo insha Allah bilintarka ah in wax looga qabto aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa teamka meesha marayo oo ay runtu xajoogo hogaaminayso waxaan leeyahay ku soo dhawaada dhulkeeni
kusoo dhawaada bahdii waxbarashada degmada Baargaal dugsiga sare Maxamed Xuseen hadalka badin maayo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.